halkan waxaan doonayaa inaan dhowr eray ka idhaahdo shir jaraa'id uu qabsay cabdi caqliire habeenkii xalay ahayd 8 fiidnimo waxaa Hargeysa ku shiray aqoon-yahanka beesha Maxamed Isxaaq iyo guddida fulinta markii ay arkeen inay beeshu ku hungooday dhammaan ahaanba saami qaybsigii ay ku lahaayeen dawladda markay arkay inay dhalinyaradii beeshu ay dhammaan ahaantoodba iyagoo jaamacadaha ka baxay badhna tahriib ku dhinteen badhna ay tii wadaan markii ay arkeen deegaamada beeshu degan tahay inay dhammaan ahaanba ay asaasigii nolosha ay hadday tahay caafimaad hadday tahay iskuullo ya hadday tahay nolosha dhinacaad ka egtaba aanay dhammaan ahaanba deegaamada beeshu lahayn waxay hore go-aan u gaadheen horta beeshu waa tii asaastay xisbiga wadani waxaan u malaynayaa ninka shirka jaraa'id qabtay inuu qurba joog nin ah inuu yahay aan wax badan war ka hayn waxaan filayaa masiirka beeshu maaha wax lagu kaambeyn garayn karo oo nin kursi doonaya oo ku kaambeyn garayn kara maaha waxaan leeyahay masiirka beeshana kama hadli karo shaksi isagu dana gaara leh laakiin beeshu waxay hore u gaadhay dhammaan ahaanba markay ka weyday xisbiga kulmiye xuquuqihii asaasiga ay ku lahayd waxay gaadhay inay dhammaan ahaanba siday dhan yihiin inay codkooda siiyaan xisbiga wadani waxaan hilmaamo aan halkan ka hambalyeynayaa musharaxa xisbiga cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi go-aankii geesinimada lahaa ee uu qaatay ee uu kala saaray musharax iyo guddoomiyihii waa waxaan ka dhicin jirin qaaradan aynu ku noolnahay africa oo waxaan hore loo arag waa ta muujinaysa in xisbigani leeyahay future wanaagsan dhallinyaradana la siinayo inay hankooda ka muujin karaan xisbiga dhexdiisa waxaan hambalyeynayaa isagana guddoomiyaha loo doortay xisbiga xirsi cali xaaji xasan oo ilaahay inuu xilkana ku astiro filayana nin ka soo bixi kara inuu yahay xilka haddaba waxaan leeyahay aan ku soo gabagabeynayaa arrinkayga waxaan arkayay baryahanba inan la yidhi waa xisbiga kulmiye afhayeenkiisa inankaas oo hadallo badan oo delqaafa iyo wuxuu ku hadlayay min aan garanayn carabtu waxay tidhaahdaa fain lam tastaxyi fafcal maa shiit kamaa tudiini tudaan soomaaliduna waxay tidhaahdaa ilay nimaan xishoonayn dagaal xeeli kama hayso anigu afhayeenka waxaan u doortay afhayeen xisbi kuma wanaagsanee afhayeenka tiktoka markaa maanta laga bilaabo waa afhayeenka tiktoka shaqadiisuna halkaasay ka socotaay halkaa u diyaargaroobo waxaan dhammaan ahaanteed baan leeyahay ummadda doonaysa mustaqbalka iyo ummadda doonaysa horumarka waynu aragnaa oo dadkii halkii ugu dambaysay marayaan roolidii lagu qaaligaray daatii dhacaysa waynu arkayni waxaan leeyahay waddanka ciddii dabaqabatayneed oo xisbiga wadani waana musharaxa maanta aynu dooranayno waxaan u aqaanaa madaxweynaha dhaartu harsan tahay waxaan dadiyooga leeyahay iyo dhallinyaradaba leeyahay mustaqbalkiinu halkaasi ku jiraa xisbiga wadani maanu ku jiraa ilaahayna waxaynu ka rajaynaynaa in doorashadaas inoogu dhacdo si wanaagsan xisbiga kulmiyana waxaan leeyahay ha ka warwareegina doorashada diyaargarooba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu